بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا لها الصوماليد ميلة جوكتان بإلهي سبحانه وتعالى ديكوان ما يلو عدي دبندبك الله كقادو عدي دن لا الله وفيو انت باهن الله ديقو انت بكتا الله بكسي انت دمتا الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستا نغنا الله نوغدب نحريستو dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa laga wariyay ibquni bidu'afaikum war ii raadiya igu yeera ii doona dadkii ducafada ahaa oo masaakiinta ahaa ii doona fa inma turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum waxa laydinku hiiliyaa oo laydinku irsaaqaa oo roobka iyo khayraadku u da'aan ضعفada sababtooda iyo dadka masaakiinta oo ducadooda la ajiibayo. waxa kale oo laga wariyay nabiga ahlu naarka waxa kullu utullin jawadin mustakbir kuwa adag oo qalafsan oo xoog weyn oo dadka laaya oo magaranaysa kibirka badan baa naarta gala. dadka ahlu jannaha ahina waa dadka kullu dha'ifin mutada'if mid kasto dhaif ah oo miskiina oo la maskiinsado. boosaasa wixii ka dhacay Soomaaliya meesha ay taalo wixii dhigay way. Soomaaliya halka waxa dhigay diin la'aantaas dhigtay qabyaalad qashin ah oo waxay tahay aan la aqoon oo aan meelay ku hakatay iyo meelay ku istaagta lahayn. reerka sida amniga iyo nabadgelyada u seexday oo gurigoodii hurda oo ciyaal suuq wasakha waxbaan isku falayn wax dhalay iyo wax yihiin aan la garanayn intay habeen bar uga soo darbiyada uga soo dhaceen handadayna waa idin soo daadanay waana idin soo daadan doona. that is unacceptable. wax boosaasa geeda maaha, wax Puntland geeda maaha, wax Soomaaliya geeda maaha. meelo badan bay ka dhacdaa. hadda ka hor kuwa la gooyay baan arkay Hargeysa iyo Muqdisho ba lagu gooyay. ma aha wax meel gaar ah ku kooban, waa dad la beegsaday oo si wadar ogol lagu beegsaday. dadkaas dadka ugu qiimaha badan oo ugu karaamada badan oo ugu nafta iyo nolosha fiican ayaa ka dhasha. waa shaqo taga xamaasha aan baryootamin ku nool murqooda iyo maskaxdooda. ma aha ma garanaysaa cidna ma tuugsadaan, cidna ma baryaan, cidna uma soo golo fariistaan, danna kama yeeshaan. dad gob ah gob maadaama maqashin qofka gobtahay waa qofka baahidiisa astura oo is asturo shaqo tago xamaasha. kuwa shaxaatamo meelaha mara ayaa u faanaya. Soomaaliya halka waxa dhigay waa inta nabiga sallallahu alayhi wasallam ii raadiye ducafadiina war dadka masaakiinta ii raadiye. waxa kale oo ka sugan xadiidka Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu uu weydiiyo yiri dagaal baa la galayaa, rag baa si fiican u shaqeeya, midka miskiinka oo daciifka ah iyo isaga ma isku sahmiyaa la siinaya. ثكلتك أمك يا ابن أم سعد. حتى سعدوا إنه يرهدوا وأقوري ويا النبي صلى الله عليه وسلم سجى يرهيني يحيري هو يدا كقبل أنت هو يدا إنا ويلكي سعد هو يديسو ويلكي سعد هو يديسو هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم أو جرجارك إيو مركا دجال قشان هيلك عليه ما واحد كوهشان رزقك ما واحد كوهشان وحنا هين ضعفاء يا مساكين. حديث كله وحي وريني يعني إنه كان يأتي الضعفاء ويزورهم ويشهد جنائزهم صلى الله عليه وسلم وأتجي جري يعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. جنازته ده إيو مقرنسا بخيب جل جري وبوقن جري مركي حنوسيين وكور هين جري حالة دو باري جري صلى الله عليه وسلم. وحردي جري وري دونا aniga dadka ii ducafada ah jannada dadka ku badan waa dadkaas u yiri naartana kuwan kale qabqablayaasha oo balaayada iska dhig. waxaan dhageystay wiilal yar yar oo la leeyahay naag dibadda jirta oo TikTok iyo dadka caydaba u soo dirtay meeshay joogto gabadha lagu dacweeyo. gabadhaas meeshay joogto dadka la jooga ha ku dacweeyeen. hala tuso videoga wiilka yarka ah oo miskiinka ah oo bariga ah oo jiifa oo hurdo kabta cagta laga saaray wajiga. wax aan akhlaaq ku dhalan oo wuxuu yahay la aqoon
buu ahaa ninka wiilka yarka ah oo beriga ah cagta ka saaray madaxa wajiga ka saaray cid uu matalaan raba arko qabiil aanu ka hadli maayo wasakh bay ahayn waxaan kaloo aad uga xumaaday waa la soo qabqabtay waa wax fiican maxaa loo sii jeediyey wejigooda ha la soo jeediyo sawiradooda ha la baahiyo video ha laga duubo sharafta ha laga qaado sharaf male sharafta allah ka qaaday wasakh weeye waxa noocaas oo kale ah weliba anigu haddaan meesha madax ka ahay kuwaa dil baan ku xukumi lahaa haddaad aniga i waraysanaysaanna afartaasba inta kaxaysaan iyo kan baxsadayba soo qabataan shantaba inta toogataan ha u noqoto darsi iyo cashar ha u noqoto aad baan uga carooday soomaalina halkaa waxaa dhigay waa intaa waxaan xasuustaa gabay uu tirin jiray nin la oran jiray allah u naxariista abshir bacadle ayaa waxaa ku jiray maxaa reer dib jira dollarkeen loogu dalaqsiiyey inta yani waxyaabihii dhacay balaayadaha buu ka sheekeynayay reer miskiin oo dib jira oo iyaguba aan waxba cunin oo haysan lacag keen imisaa dalaq loogu siiyey buu yiri god oo lalaayay yacni dadkii masaakiinta ahaa dadkii tabarta darnaa waxay samaysteen wax layaa looma ooyaan waa idiin soo daadanaynaa reer hebel baale boosaaso saqajaan orod ragga iska dhici haddaad naf leedahay orod rag raadso maato iyo xaasas iyo carruur iyo odayaal guri hurda ha weerarin naf haddaa leedahay oo rag tahay rag baad iska dhicin lahayd naagina kuma soo dirteen awal baa la yidhi awr wado iyo nin naagi wado midna kaama lex labadu waa isku mid nimay naagi diri karto nin maaha nafna male inay xoogaa lacaga u dirtayna waaba dhici kartaa oo uuba ka sii liito kan naagtu ay wado uu ka sii hooseeyo ma arkaysaa halkaa waxayna dhigay waa edabdarradaas waa meel kastay ka jirtaa dad baa Soomaali ah bal waxaan idin xasuusinayaa kibirka iyo edabdarrada iyo qabiilkayga anaga reer hebel baan nahay waa ka fiicannahay laandheer aan nahay laandhagaa baa taarada kelmadda iyada ah Soomaali halkaa waxa dhigay waa iyada oo wallaahi wabillaahi ilaahayna ilaa aad ka toobad keentaan in allaha laa yughayyiru maa biqawmin xataa yughayyiru maa bianfusihim ilaahay wallaahi buusan idinka qayirayn idinka bedelayn xaaladda iyo marxaladda ku jirtaan kuwaas xoolahaabaa idinku doobinaya wax magarad baa madax inta laydinka dhigay idinku doobinayaan markaasay kulligiin idin dullaysanayaan oo idin bahdelayaan nafta idinka goynayaan because waa istaahishaan aljazaau min jinsi alcamal camalkaad geysato iyo ficilka iyo falka aa leedahay baa abaalkeeda gurataa waxaa laydinku salliday cawaan iimaanka beelay oo lacag doona oo aan dan idinka lahayn iyo heellatoonna oo isaga iyo naagihiisa iyo carruurtiisu saa idinku wareegayaan gees ilaa gees Soomaaliya meelaad degtaanba waa musiibadaas weeye dulmigaas weeye waxaa ka dhacday North America gabar baa wiil jaamacad ay la dhigata ay iska heleen wiilka waa reeraha la yiraahdo jareer weyn gabadhuna waa dadkaas kale ma raba hadda inaan qabiilkooda sheego waxaa lagu heshiiyey jaamacadda la isla dhigtaa wiil qiimo leh oo nadiif oo muslim oo ahlu diina wey inay isguursadaan waa la fakaray waxaa la yidhi waxay tiri hooyaday absolutely yeeli mayso inaan ku guursado haye maxaa tala ah waxaa la yidhi maanta laga bilaabo jamaican baa tahay soo muslimay nin african americana tahay oo soo muslimay af Soomaaliya mar dambe ha ku hadlin ingiriisku waa ciyaal ingiriiska si fiican u yaqaan meesha ku koray waaye reerkii baa loo tagay maxamed baa la yiraahday wiilkaana waa soo muslimay waa la siiyey gabadhii waa mehersaday waa la aqalgalay wiil bay u dhashay iyadoo uur leh baa maalintii dambe subax sabtiga hooyadood kusoo kalahday gabadha hooyadeeda kusoo kalahday iyagoo aan iska jirin wiilkii marka qol buu ku jiraa hooyadiisoo kaab kuuma iyo meelaha joogta xerigii qaxootiga buu la hadlayaa Soomaali buu kula hadlayaa islaantii baa u timi oo waxay maqashay gabadhii goorta islaam weyna ilowday gabadhii xataa way ilowsanayd oo ma fahmin wixii muddaa laga soo horeeyey haddana waa ninkeedii oo midna waa u dhashay midna waa u sidaa nolol fiican oo sharaf leh oo karaamo leh bayna ku noolyihiin waxay tiri nayaa idin yimi oo xalay idinla seexday aroortii iyadaa soo kalahday qofka marka meesha ka hadlaya waa qof xalay hurday say tiri qofna way silowday say tiri yaa meesha qolka ka hadlaya say tiri waa maxamed islaantii dhulka isla dhacday hoogayo baaye jareer bay qarisay jareer
oo Jamaicaanka iyo African Americaanku jareer maaha kana aabihii iyo hooyadii la yaqaano muslime midka soo islaamay iyo kan muslimka ku dhashay oo aabihii muslimka ku dhashay hooyadii muslimka ku dhalatay oo abka ab muslim ah oo Soomaalida ah oo dhaqan iyo diin iyo sharaf iyo karaamo intaba aan wadaagno kaasa ka fiican dhaqan xumadaas weeye waxaad meel walba ugu dayacantihiin ugu baaba'santihiin meel walbana aad karaamo xumo iyo sharaf xumo u joogtaan ilaahay ilaa u toobad keentaan waxaas iyo waxyaabaha la midka ana aad mawaaqif adag ka qaadataan wallahi baan ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka gayirayn waxaa ku nooshiin anigoo ku hadlaya magaca Soomaaliyeed iyo magaca wadaadada iyo culimada Soomaaliyeed iyo magaca odayaasha iyo waxgaradka Soomaaliyeed waxaan leeyahay xaal iyo xumayn naga gudooma raalli ahaada ciyaalka xununka ciyaal suuqa iyo naagta soo dirsatay cidna ma matalaan actually waxaan arkayay wiil kamida wiilashaas la soo qabqabtay walaalkood mid ah uu falaar inta saaray oo Facebook soo galiyo screenshot la igu soo diray wiilkaasi waa daadi iga yarayd waxaan aaminsanahay qaba ka dalbanaya ka codsanaya lamaha amniga inay shaqo ka qabtaan wuxuu mudan yahay ay mariyaan anigu hadaan meesha madax ka ahaan lahaa dad macquulan ay madax ka ahaan lahayn wiilashaasi markay ugu yaraadaan 5 sano 6 sano 7 sano xariga liqi lahayn haddaysan ba ka badsan mufsidiin way waa xoolo maskaxda xoolo ka yihiin dhaqan baysan lahayn akhlaaq baysan lahayn diin baysan war ilmaha yarka ah hurda muxuu geystay ma garan waayay waxaanu ma uusan muslim ahayn oo guri muslim ku korin walaa taziru waziratun wizra ukhra nafina naf kale eedeeda iyo dambigeeda male intaa ma garan waayay intaas reerahoodu ma barin miya inaan qof dambi uu galay qof kale loo qabsan karo naag baa naag TikTok ku cayday so ma iska dhiciso maxay soo la caytamaysay dadka markii hore qofkiisa qof caaya ma reerahoodii waa la leynaya ruuxaas akhlaaq xumada ah iyo dhaqan xumadaasi wax la idin geeyo maaha reerkaas maamada iyo odayga iyo ninka odayga ah nin zaciim oo ahaa runtii ninkaasi nin buuxo ah ilaahay baan ku dhaartay nin gobo ah adeer ana hawsha qaadanaya faraha ka qaad biir idin ku soo noqon maysa si gobanimo ku jirto wax sharaf iyo karaama ka muuqatay gurigiisii waa loogu soo dhaay uu arkay inay wax aan macna lahayn oo ciyaal suuq reer hebel baa boosaasale ma isaga kala leeyahay boosaaso kalab xun baa tahay wax runta ku sheegaa weeyo rag raadso ku leeg ma garanaysa qabyaaladaas iyo qurunkaas waxa halkaa ina dhigay way ha laga fariista dadka cagaha laga dhigo dadka masaakiinta iyo looma ooyaanka iyo magacyada loola baxay cagaha laga dhigo dadkaasi dad muslim oo sharaf oo karaamo leh oo qiimo leh way banaanka laga maro waxyaabaha lagu sameeyay oo takoorka la yiraahdana hala joojiyo hadeer ha laga dulqaado sheekadana waa baabi ilaahay hadii dadka la isdhexgali lahaa edab darrada wixii alifay oday xun oo reer miyiga oo aan aqoon lahayn oo aqli lahayn oo dulliya oo 5 6 7 8 qarni ka hor ya 800 500 600 years ago edab darra alifay iyo beenu alifay dad lagu go'doomiyay baa wali lagu wadaa hadaa wax barateen ma ka bixi laadiin hadaa diin barateen ma ka bixi laadiin hadaa aqli sateen oo reer magaal noqoteen ma ka bixi laadiin ma qof ba qof ka fiican ma qof aan aadan dhalin baa jira kullukum min aadam wa aadam min turab ma ciidan aadam dhalin oo cirka ka timay jirta ha reer hebel ma fiicna reer hebel ba ka fiican istibadnimadaas iyo badownimadaas caalamka la joogtaan ma arkaysa waxyaabaha qaarkood حتى كمان شيكين كرنا محاكو شيكينا what do we say قف با يقليتا أو يقليتا because قبيل كيسة ما إنه يسوي أنا شخصيا يقليته أو أنك شخصيا كفيعنا لكن غير البويه يا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه نبي قايل صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ما أنت ما طلعي بعد سوي راني سنة وإذا نحكي وجمالين صحابة لما قالوا أنتي وكلا بحنا يا غير مهاجرين يا غير أنصار حتى قبيل ما هين كله غير مدينة يا غير مكي أدرين قبيل حقا كوين بيهاي قبيلة موجودة بو كوير ما نور إذا نحكي دعوها فإنها منتنة وروح عنك كتبوا يرقرون ويا موجودة دعوها قفك عمل كيس ودبلغوا آخره نصب كيس مهر مريو يوم ينفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. maalinta qiyaamaha qofkii camalkiisu hoos u dhigo nasab kordhin maayo korna u qaadi maayo. camalkaagu hadduu hoos maro naartaad dhuuqaysaa, haddii camalkaagu kor marana jannadaad aadaysaa ku raaxaysanaysaa, markaasaad ku hoogaysaa ku baaysaa adoo laandheera ahaayo ninkii belada ahaba inta lagu yimaado xalwad duq innaka anta alcasiizu alkariim dhuuq baa lagu leeyahay waryaa dhadhami naarta cun oo ku noolow adaa sharaf lahaayo khatar ahaa nin bela baad ahayd cirkaasaa isla maraysa متكبر باه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لبيع ير أو إلى أركته وغير أو كبر قفك قلبك سكترته جنة أرك ما يري النبي صلى الله عليه وسلم الكبرياء ردائي والفخر إزاري فمن نازعني واحدا منهما عذبته. كبرك أنا إسكال قايق كروي مقرنسا فانكا iyo isqaadqaadka iyo iskoryeelkuna waa maradayda hoose qofkii labada midkood igula doodana naartaan ku hubsanaya buu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala. ilaahay uun baa u qalmay inuu kibro maxaa yeelay ida arada shay'an yaqul lahu kun la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun waxa alla wuxuu rabu sameeyaa lama weydiin karo yaf'alu ma yurid yaf'alu ma yasha markaasaad kibri kartaa daciif baa tahay miskiina رباحة كوفلا مركزات تخلصيني سافك تاجيسة مركزة. أنت أصلا أوراني بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.